السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا عاورا نلهايا إن شاء الله وحين قنيسا ورفر حل طبعا إن شاء الله. سود هذا قاع مفرن يقلب في عن يحلبه أصحاب هذا سود وين عينه أنا أصحاب هذا سود الصلب هي أنا أصحاب هذا وأصحاب تيدا كحواي إن شاء الله وبرشون أكسن إن شاء الله أصبرت دونا دولي هذا مركا آد ماركتي صوب بضتان أنا سي جود قلنا حياة فرحة بدن يوناجا يحل بنا إن نهان سمعان الحمد لله وحاول وحاسب جوجنا فإذا قروح أسب جوجنا وتاسع وجدين ساكين تيرد مسكين تيرد أو قلبي جوناك سند يا ما شاء الله قارن حناق قدر صوته أنا حناق لكن ملاك حناق هذا بشيء كري سود هذا ونجعلنا هني شعب كاجا فإذا هذا وجعل شعب كاجا مكاي شرط ما مثل هذا والله وحواي عادي هذا وجعلها والله ما شاء الله عاور بدنا إذن هنا Soomaalida meel kasta oo joogto waxa waaye in la iswareysto wax la isku sheego ay wanaagsan tahay aadan ugu faraxsanahay dalkeena soo dhawaada oo jecelnahay ma sha Allah internetkana waxa muddo xoogaya daciif inuu yamaano hadalkeena ma maqashaan haart soo qara intana maqashaha soo qarto timahaaga waa weyn بسم الله وكاكر مرن مستري هذه هاسي ما دونانه بسم الله الرحمن الرحيم أفرح سنة ولدت كيجا مجدي وحلاي هاي نيوز في عن good news عن الهاي إنجليز اسمه الله ها يا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أصحابي أنا سلامت دوام مركورة كذب أنا حلا مركز هاي السلام عليكم هرت مركورة ملك استاجوكتان أصحابتي ذا قيمة هاي قاية هاي شرفت له هذا أيدين سلام يا ملك استاجوكتان أنت قرال كودا أنا كجارو وأنا كقاعد وانا سلامته أنت أنا أركين إنه حاليا هاي هودا أيان أيدين صومر سينيا ضد بدنا وجيدا أو كميدي هاي يعقبين عيسى marka waxa leeyahay yacka bin ciise soo dhawo walaalkay macaan maanta waxa waaye soo dhawo mas'uul sare mas'uulka newska ugu wanaagsanay waa ma fahanteen rumahantii waxaan joogaa dalka Jarmalka walaalkay Cabdiraxmaan Maxamuud master kaskas asagna aad u salaama kaskas waa waree ma sha Allah oo ku salaameena soo dhawo oo jeeda ya qalbi daacada nolol fiican ma sha Allah halkayga kala ilaab ugu horeyntii yaan warka ku sii daahday horta halkeena ma maqlaan dadka dadka waxa waa dadka qaar haay soo qorayaan liibaan aadan soo dhawaamay walaalkayga qaaliga runaantii waan ku faraxsanahay inaan live awdiin soo galo waayo waqti hore ayaa ugu dambeysay live aan soo galo caawan ku faraxsanahay in live-kayga aad daawataan waxa idinka codsanaa inta ku jirta inay sii share gareyso barnaamijkayga please waa codsi faizo qaran aku bixiyaan xaaji xuseen aad ku salaamay waxa idinka codsanaa inaad sii share gareysaan si oo newskayga u gaaro oo dadka oo dhan insha Allah biidnillah alkareem فإذا وحكوا أوجدين إن بدن أيضا ماركتي كذا مركز لقى شيء جايو دقيق جوات دقيق هذا كسلام وكوتا جنا حبيبتي إن فرنهانتي وحجرتي إن ماركتي بروبلم كي جوز كبرنا عمر والبحارة دي دماني بماني كدم بيسو أي ماركتي هايد إن أي ميل ودعينين فرنهانتي وحجرتي بلنقادي بدن إن إيسا مس الدولة دي هسه أهاتي إيسا صورتي جلين sidaas tahayna waxa leeyahay dawladdeeda meel kasta ay joogto sharafaynaga mudan tahay iyo ciisa sharafna ha igu noolaadana leeyahay dawladdeeda dhammaan iyo waliba madaxdeeda barakallah mawcil qabi maw xumaan qabi runahantii nabad iyo nolol waan u taaganahay laakiin nabad iyo nolol ninka ka nool waa ninka
aad iyo aad oo basata marka waayo dhammaan ummadayda meel kasta ay joogaan waxaa leeyahay nabad iigu noolaada. waxaa idinka codsanayaa inaad sii sheergaraysaan si ay usii gaaraan dadka kaleeto walaalaheena. xaaladeedana oo dhabta ah waxaa rabaa inaan uga hadlo. muddo badan waa sugayseen laakiin caawa ayaa idin sheegi doona. saadaq bal bismillaahi raxmaan kala dhex baxo. aad iyo aad codsiga ugu horeeya waxaa waaye dhammaan horta shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo walaalahayga qaaliga ah oo sharafta leh codsiga faa'iido maaragtay weeni sheegtay waxayna dhahday please share gareeya sidii maaragtay walaalihiina kala Soomaaliyeed ay u gaaraan. soo qoraya codka wuu go'ayaa. hadda mana maqashaan hadda ها أين سقران ها سقرا هدي أنا مقشان سو بوبسي ها وحوا إن شاء الله وحوا نيوز في عنان الله يا إن شاء الله ميل أو إسبيتال نواجهنا حوجا وحمودا إن ماركت أي قال هذا نو إسكري بدن هنا قيل هذا إيو هذا الكبدن ما أقوله مركو حايدين كعصنينا ها إنا سوقرتان هدو عدكن أو فسيحي هاي سي أنا يدين كوسو بوفسينا وحايدين هنا حلقي صحواي waxaan rabnaa inaan maaragtay news fiican iyo barnaamijyo insha Allah waxyaabaha xaaladaha faa'iido waxaan rabaa inaan wax yar aan ka hadalno haddii aadna maqashaan haa soo qora haa waa fiican yahay hor u sii gadagal ha okay waa fiican yahay alxamdulillah horta asxaabtada shacabkaaga inaan barto waa inaad adiga bartid waay masa أنا برنايو أوكي. وهرين تيفيل كم حال ده عبد القادر محمد عبدي لكن وحكم مقع داريا صادق قبيلة ديد إن رنهانتي مركا عليها هاي إذن برو حي كميتها صادق وحواي ويلك كلي مانتي رنهانتي نولوشي وحبدن كبدلي إن مدبدا وحكوتها معي أن هرت عن جرمال كي إماذا مدبدا وحكوتها معي ميل والبقى أمري أنا قد والبقى أن لبعتك است أمري حدنا إيش وردقيلي ويسي إن أن هلو run ahaantii saadiq waa wiil dhalinyaro ah oo maanta dhibkay ka danqaday run ahaantii ka dhalinyaro ahaan iigu istaagay ka Soomaalinimo iigu istaagay muwaadinimo iigu istaagay ilaahay weyna ka sokow maanta aan dartiisa halkan aan ku joogo waxaan ku jiraa isbitaal run ahaantii qolkayga waxa ila jiifa qof kale oo bukaan ah sida arkaysaan waa ka saamuujadiin uu isuran yahay geedkayga waa wataa sidaas tahayne wali waxaa rabaa inaan idin sii cadeeyo inaan maaragtay dhibka aan yani aan dareem farxad aan dareemayo in la qaybsado saadiq waxa waaye dhalinyaradii oo maanta ii istaagta ayuu kamid ahaa oo runtii dadaal badan waqti badan ii soo geliyay jawhi badanna ku soo bixiyay sida uu u keen lahaa dalkaani saadiq waxa leeyahay waa maasanta aboowe aadan kaaga mahad celinayaa qofka bini'aadanka ah markii la dhaho meel hebel hadaad tagi lahayd waa caafimaadi lahayd run ahaantii qofkas raja ku sii jirta aniga meesha ee rajadeeda yani niyad ahaan ay taalay waxay ahayd meeshan caawa aan joogo wixii ilaahay xaggis ka qoran ma sheegin laakiin wixii dadaal ah iyo wixii kasii badnaan doona insha Allah biidnillaahi alkariim waa dadaali doonaa run ahaantii xilligaas aan la hadlaayo waxaan ku jiraa isbitaal xanuun ma igu dhagno oo xanuun oo hadda yani gubay ima hayo laakiin sida ogeedeen waxaan ahaa qof u baahan xaalad caafimaad iyo daryeel fara badan saadiq wuxuu noqday qofkii kaliya ee maanta ii siiyay gurmad iyo daryeel walaalnimo daryeel Soomaalinimo run ahaantii iisoo bixiyay jawhi badan waan ku mahadsanyahay walaalkayga كله واحد يمنا وسؤال كدونتين إذا كانوا حاين كراجينيا إن إله سبحانه وتعالى وبرنامج كي يفوض ذايو إن صومالي محمد رنانتي قرب إسيان ويقرب يستاجين وحول بي قبتين إن ما أنتني ولا له هيجا مرنا بكم مار مكر الصومالي وما أنتي أي قدرت وضع أنت مكسو جاري صادق رنانتي وحكم ذي هاي الصومالي ذي استاجتي قف وقيمة هاي قايها بدن idinkana waxaa tihiin dadka aniga garabkiisii oo mar walbeetana garab ila taagan iyo hoo iyo maaragtay iyo duca intiinaba maanta waxaa wax ku soo gaaray ducadiina waaye ilaahayna waxaan ka rajaynayaa rajadeeda inuu ilaahay ii aqbalo xaaladeeda waxaa waaye hadda waxay sii socotaa baaritaano kadib howlo badan ay imaaday marka insha Allah wixii kale warka sii dhameystiri doono walaalkayga
marka maxaa leedahay 2200 oo qof ay ku daawanaysa saadaq Aad iyo weli aad. sii share gareeya weli waxba ma jeedo waxaa rabaa inaad sii share gareysaan Aad iyo si aad. ay u sii gaaraan 2000 oo kale aad iyo dadka aad. dambeey doonto insha Allah bismillaahi raxmaani raxiim horta aad ugu faraxsanahay 2200 aan daawanayso dhammaan waxay u badan yihiin maaragtay dhalinyaro Soomaaliyeed u badan yihiin dad aad ku jecel ku daawanaya maanta faa'iido ku jecelnahay alxamdulillah dadkaas shacabkaas ku jecel ayaa aniga ka soo dhaxbaxay yacni ma ka soo dhaxbixin siyaasi kama soo dhaxbixin yacni ma ka soo dhaxbixin mataqaanaa hay'ad kama soo dhaxbixin ma ka soo dhaxbixin maaragtay dawlad kama soo Soomaaliyeed kama soo dhaxbixin laakiin shacabka Soomaaliyeed ayaan ka soo dhaxbaxay shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay fiidiyogan oo aan soo galeyno waa mid aad u muhiimsan faa'iido xaladeeda in badan ay soo daashatay aad ogtihiin marxalada adag ay soo kala martay waxaan rabaa insha Allah inaan xaaladaha faa'iido warbixinadeeda in aan xoogaa nigaaga faaloodo insha Allah haduu Ilaahay raado waxaan niga codsanaa in aad share gareysaan share gareeya fiidiyogan si aan maaragtay asxaabtiina kale amba inta faa'iido jecel ay sii gaarto waxaan joognaa dalka Jarmalka joognaa qaar waxay soo qorayaan Jarmalka xagee ka joogtaa okay Jarmalka waxa ka joognaa Bayern Munich ama München aan ka joognaa München aan ka joognaa Soomaalida kale oo aan maaragtay Soomaaliya dadka shacabkaaga badan yahay mogtahay München ma fahmi karaan laga yaabaa waxa laga yaabaa waa Bayern Munich ayaan joognaa aan ku suganahay insha Allah faa'iido horta waa dareemi kartiin xaaladeeda caafimaad sida uu yahay amba wixii ku sugneed faa'iida xaaladeeda iyo systemkeeda ayaan waxaan rabaa hadda xilligan meesha maray insha Allah inaan nila wadaago waxaa imaanay 5 maalmood ka hor ayaan maaragtay soo gaarnay dalka Jarmalka maaragtay waxaan hadda joognaa isbitaal ku yaala Munich faa'iido mataqaanaa waxay hadda isbitaalkan waa la seexiyey si degdeg ah ayaa lagu keenay faa'iido waxay martay yani waxa hadda oo socdo oo hadda yani xilligan la joogo oo socdo control maaragtay waxa laga qaaday wadamadan Yurub waxa u yaalo sharci qofka marka hore waxa la sameeynaa waxa la marsiinaa xaalad caafimaad ayaa la marsiinaa faa'iido waxa la marsiiyey ma taqaanaa dhiigag badan yani dhiiga laga qaaday maaragtay waxa kaloo la sameeyay maaragtay raajito iyo waxyaabahaas la saaray maaragtay iskaana la marsiiyey waxyaabo badan xaaladda caafimaadkeeda ayaa la baaray faa'iido waxa waaye hadda markii aan maaragtay dhaqaatiirtii oo maaragtay aan la xiriirnay oo aan dhaqaatiirtii aan la hadalnay waxay noo sheegeen arrimo oo maaragtay xaaladeeda ku soo kordhay aan ogeenin faa'iido waxa la saaray maaragtay cajirkan oo maaragtay boodada midigta ah faa'iido labadeedu lug waxay ahayd marka hore lugna maaragtay yani aad u yareed caadi ahayd normal ahayd lugta kale midigtana maaragtay waxay ahayd aad u bararneed sidii buufin la buufiye ahayd kor ilaa hoos marka dhakhtar oo caafimaad iyo daryeel iyo waxyaabo nasiib horta waa ka xunahnay meen u helin intay Kenya joogtay iyo intay maaragtay Turkiga joogtay baaritaanka la sameeyay iyo waxyaabaha oo maaragtay dadkan ay sameeyeen maaragtay 5 maalin aan ku hol yani aan maaragtay ku soconay waxay ahayd lugti barartay ayaa la baaray waxay noqotana lugti inay xoogaa maaragtay ay jabtay lugta oo maaragtay bidixda lugta midigta ah yani waxay ka jaban tahay dhanka boodida oo maaragtay oo yani isgalayso dhaqaatiirtan waxay dhaheen maaragtay lugtan aad u bararsan tahay aad u jaban tahay waxaanan ka maqan maaragtay lafaf oo maaragtay meesha ku jireen ayaa ka maqan marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inay gabar walaasheena faa'iido noo caafimaado midda kale waxa waaye waa dareemi kartaan faa'iido intii dambo oo maaragtay yani kama lahan maaragtay dareen kama lahan inta xundurtu wixii ka dambeeyo lama oga marka nasiib xumo maaragtay waxa calool xumo igu ama nasiib darro igu
amba shacabka Soomaaliyeed aan u sheegayna meel walba ay joogay faa'iido maaragtay in la soo dayacay oo maaragtay dhibaato fara badan aad u fara badan ay maaragtay ay ku dhacday waxaan habeen horaato ilaa xalay waa murugoonaynay maaragtay mataqaanaa waxay noqotay wax oo waxay ugu noqotay ani mucjizo ah sababta ay tahay yacni qof laf jaban oo maaragtay intaasoo bilood iska jaban aan la ogeenin waxa waaye waa wax aad aan u fiicneen insha Allah waxaan rajaynaynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu caafimaadkeeda aad u fiicnaado soo duceeyo haloo soo duceeyo lugta hadda waxa waaye alxamdulillah qalin ay dhahaan laakiin lama hubo insha Allah waxa waaye waxaan rajaynayaa ina maaragtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala si wad yani caafimaadkii meel ilaah u dhigo aniga ma dhahay ilaa waxa u baahana inaan socdo socodkana maaragtay Ilaahay wuu ka imaadaa laakiin samarsiin wax la dhaho aniga rajaa waxa iigu jirtay hadaa maaragtay dhakhtar oo saas oo kale oo Jarmalkuna la kulantid maybe ina hataa maaragtay ka badbaadayo ama aan xal loo helayo kateetarka iyo maaragtay bambriska kale muhiimada ma ahan inaan socdo kaliya inaan helo laakiin insha Allah ta'ala Ilaahay waxa ka rajaynaa in uu Ilaahay iga dhigo qof ku samro inkastoo aan ku soo samray haddaba samarkayga aan inta ku imaaday inta dhimana waxa rajaynaa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ii dhameystiro idinkana waxa idinkaga codsanayaa inay soo duceysaan 24 hour inuu Ilaahay ii fududeeyo hooshayda maanta waxa waay aniga dawlad waxba kama sugaayo qof kale waxba kama sugaayo gaaladan inuu Ilaahay ii soo cabiidiyo kolay walaalahay Soomaaliyeed tiin idinkana mar walba idin kama maarmi doono abaalka ii gasheen ma ahan midan ilaabi doono walaalkay saadiqna waa mid uu ii sameeyay waa midan aan waligayga aan ilaabi doonin waxa leeyahay waa maasantahay aad iyo aad dhammaan horta waxa waaye haddii aan Soomaali nahnay meel walba waxaa hadda qadka soo galay Saahil Maxamed waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxa waaye aniga waxaan ahay wiil Soomaaliyeed oo faa'iido u kacay una xeetay amba u qaatay amba ma aragtay in ay faa'iido u istaagay in ay ma taqaana rajadeeda nolosheeda wax qabsato faa'iidana birka maal waxba inta qabsato ma aragtay ay ma aragtay nolosheeda iyo waxa arkayna anagoo wanaagsan ina imaano ma fahamteen marka ساهل محمد وحلها عبد الرحمن ما شاء الله آدي ومهسين هاي سهل وحواي وانيكي لباد يقرب قلي صابت ايتها إن بدنا عيشودي يعني برنامج من كودي ودن كأنا هذا فائزو أنك كيني أو معرفتي أي عن مسؤوليتي إذا ما تخانا عن سوق هذا صابت ايتها فائزو مسؤوليتي إذا وحن كقاتم ملع الله عن كقاتي وحن أوقاتي وحن أركي إن وحن لو قبنين مسؤولية مركا قاطة فإذا أنا مسؤول أي متقانا أنا قاك إلهي سبحانه قادر كسكو أنا مسؤول كإيه كدبنا يعني وحدة هاي وأنا أنقاتي نينك كلي له معرتي إلى قرب قلي أو أمانتا أوكي أمانتا أن متقانا أن شعب الصومالي هرتو أو شيء أو مهد علنايو وحواي وويل صوماليات وحوجوجا ودنك تركيا اسطنبول ودقنيها اسطنبول جوجا waxaa lahaa Cabdiraxmaan allaha magaciisa kale Facebook wuxuu ku soo galaa Saahil Maxamed oo ku soo galaa ninkaas waxa waay garab weyn oo isii waxaan leeyahay saaxiib Soomaalinimadaada iyo qalbigaygu sidoo yahay qofka kale labaad oo as dhigi karo Soomaalidiisu way cadahay am damiir uu leeyahay waa adiga Saahil aadana ma santa abaalana ku heena aboowe faa'iidana waa ugu jeedaa si marka insha Allah ta'ala asxaabteeda sharafta leh inaan ku sii fogaano marabno كلي أنا قاعدة إسبتالك وحن كلا كل ميدونا إن شاء الله حالة دي ساعة إني لسه سعودين دونا صادقنا حالة هاي قولي سمر والباجوكتي أبوي مرة البحة واي متقانا رال نقد حوجا تلفونك أيا قعنك حوجا عن فدين مركا وحربا هل فرين إن عندرو هل فرين هل نقدر ضدنا صواعا يحوجا ضد واحد جرو أن وناجا الربين أو مرة بنصواعا أو نصود حجلايو مركا ما أنا أركي نقفك صواعا لكن مساجر كأملنا إن نقل صواعي مركا هل نقدر وحربا هل فرين إن عندرو إن شاء الله هدو إلهي رادو هل كاس فرين عندنا يوحي تاي وحنا عندنا شعب كصومالي إذا شعب كذا جعل
faa'iido shalay waxay u baahneed in garabka la qabto oo maaragtay la caawiyo wallaahi aadaa u mahadsantihiin haddii aad faa'iido maanta idinka soo saari lahayn oo idinka aad wax u qaban lahayn aniga idinka aan tusi lahayn aniga ma soo bixi lahayn sababta ay tahay mataqaanaa haddana waxaan u leeyahay garab ayay nigaga baahan tahay mar walbaba faa'iido marxaladeeda aaday u fiican tahay dhaqaatiir fiican ay ku haminaysa weli laheyd ay haysataa amba ay heshay waxaan iga codsanayaa inta i taqaano oo inta i taqaano aniga asxaabteyda ah amba ma aragtay inta i maqashay waxaan rajaynayaa inaan faa'iido aan si wada jir ah oo wanaagsan aan usoo garab galno aan u garab galno yacni hadeer yacni dhaqaatiirtu waxay noo sheegeen ayna dhaheen in haddii xitaa qaliin la sameynaayo amba wax la sameynaayo wixii qarashka bixi lahaa iyo waxyaabahaas ah marka insha allah meelna waxaan ka rajaynaynaa waxyaabaan ka rajaynaynaa inay noo hagaagaan hadduu ilaah idhaahdo faa'iido aan garab galno mid labaad waxaan dhammaan aan fursaddan ugu faa'iidaysanaa faa'iido dad waxaa jiro oo isoo dhiirageliyey dad waxaa jiro isoo garab qabtay oo aniga oo faa'iido maanta aan wax u qabtay maaragtay dadkaasna waxaa waaye waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan yihiin reer Barma reer Italy reer Barma aaday yani u mahadsan yihiin xasan axmed xirsi iyo dhammaan asxaabta dhammaantoodu waxaa waaye waxaan leeyahay intii garab qabatay oo maaragtay oo igu dhiirigelisay inaan walaashii u istaago aad iyo aad ni mahad celina midda kale waxaan leeyahay Faadimo waxaa kaloo rabaa inaan u mahad celiyo saaxiibada Faadimo walaalkayga aan adduunka u jeclahay oo runtii ila sineen ruux bini'aadan dunida saaran walaalka iga yar maxamed qadar cabdishiid cabdi cismaan masha Allah oo run ahaantii ahay garabkayga lugahayga awoodayda wax walbeed ii ahay oo maanta caaw ila joogin waxaan rajaynayaa walaalkayga inuu meel walba joogo oo ilaahay maaragtay raxmad oo igula noolaado walaalkayga waxa waaye kama maarmi kari run ahaantii waxaan dareemaa wax badan inay iga sii dhimayeen cabdiqadar maqnaashihiisa laakiin walaalkay macaan meel walba joogo waxaa leeyahay aad u mahadsantahay walaasheeda firdowsi la kadaalik Faadimo hooyaday macaan ducadeeda oo habeenii maalin ila garab taagan aan ula jiiftana waxaan leeyahay hooyo adduunka hibo ku noolaa insha Allah kuma sii daaheeno asxaabteeda sharaftii qiimaha leh aad baa idin sii salaameynaa saadiq maxaa ku sii darsanaysaa waxaan leeyahay dhammaantiinba waxaan rajaynayaa khayr iyo caafimaad dad baa waxay soo qorayaan faa'iiso numberkaaga noo soo qor insha Allah waa idin soo qorayaa numberkayga waxaan ku soo dul qori doonaa videogan cid u baahanna waxa waaye insha Allah biidnillaahi alkariim waan u soo qorayaa inta ma lagu qori karaa halo qorka kontiga kormaanka aqaanahay ilaahay maalig waaye insha Allah waa soo gudbi doonaa numberka ka dhicin telefonka ka soo bix telefonka ka soo bix inta ugu qoray gacanta qaba xididka bi xanuunaya kiin gacanta qabto dhibaato waxa laga yaabaa in 49 badle u qor adi la sii hada laakiin asxaabta shacabka la sii hada si aan wax u soo diyaariyo insha Allah marka waxa waa insha Allah numberkayga ana idin soo qoraayo waan iska hagaagaysa biidnillaahi albaari dib kale ma jiro wax badan waa soo dhibtooday waa soo ooyay sariirta ku ooyay kursiga ku ooyay jiifka ku ooyay beel kasta ku ooyay kana ku qabanay marka insha Allah soo yeeri labis korogma jeeda 49 15 لاتنيكو 67 إبر سديد أفر تسمعه أوكي قدرت يا مولانا ها إن شاء الله مركب واكسر نمبر كيجا سيد أنت لو رهم إقاني سك ها إن شاء الله وحواي هالقصة يجلس عدون تان أنيك وحواي وحلقة يا وين ما عرفت قليل واي إدهان جواب وحلقة سوقا هذا وحيمان دون دكتور كلفها دكتور كلفها مركو إماذو أسجع يا وربحين تتوصل كيني دونه رنهانتي هذا مرحلة تاعهم حواسين بود الجبن إن حلوه له
kadibna xaaladeydii kaleeto ee caafimaad aan u imaado wadankan inay wax kasii qaban doonaan. koley wiilkan wuxuu soo dhaa adreyska isbitaalka والله ما قاني وصابك أدريسك إسبيتالك إن شاء الله أنا هايو أنا تصايو ما الأركي كره والله درس أنا أوكي ما يأذي هذا الذي أنا تصاي أدريسك ما أركي كره وصابك لو درا عادي وين أوكي تمام أوكي إن شاء الله خير بدنا إيدين رجينا وأنا كم سنتين داوشة waxaan rabaa hal fariin inaan u diro mataqaanaa hooyadii aan jeclahay maaragtay xaawo waa faa'iizo hooyadeed waaye hooy macaan oo ujeedaa waa faraxsannahay maaragtay aad iyo aad maaragtay ku salaameynaa adigana hooy waxaa tahay qofka kaliya oo maaragtay marka ila hadasho farxad iyo reereen iyo qalbigayga oo maaragtay farxad ay u sii qaadaysay in aan maaragtay holaha aan gudo galay aan holaha aan galay in aan maaragtay ku sii dhiirgeliyo hooyo xaawo adina ku salaama dhamaan waxaan salaama asxaabteena kulli dhamaan waxaan jeclaa ma sheegi karo laakiin asxaab badan waxa jirto sharaf inoo leh dhamaan inta dhan waa sharaf ileeyihiin halaha daawayso dhan sharaf ileeyihiin khayr ay diinayna insha Allah taala ducada xaqiina waay hala soo tufo to masaakiinta inuu ilaahay ka kiciyo aad iyo aan islaamina waa ka bixina insha Allah soo duceeya Bye.